رد عصب habeenkii xalay ahaa laga daafuray magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaanay meheradani u gaartahay agabyada ay haweenku jirkooda ku qurxiyaan sida ay sheegtay mulkiilaha meheradaasi dhamaantoodba waa kuwa dabiici ah oo ka samaysan dhir isla markaasina aan waxba yeelay jirka haweenka isticmaala Ifraax Cali oo ah mulkiilaha meheradaasi cusub oo la hadashay telefishinka Cable ayaa ka warbixisay agabyada ay meheradeedu keento iyo waxyaabaha laga farsameeyay waxaan u fiirsaday hablaheena inay yihiin hablaha Afrika ugu quruxda badan ugu skinka wanaagsan marka waxaan jeclaystay inay caqabado hor taagan yihiin baan arkay caqabadahaas oo ah inay waxyaabo kiimika ah isticmaalayaan iyagoo ay dadaal ka tahay kiimikadaasna ay u keenayso cudurro badan oo xitaa ka mid tahay inay gabadhii cimri degdeg ku dhaco gabadh 20 jir oo ekaata 40 jir ilaahay wuxuu ugu guuleysay alxamdulillah inaan helo dhakhtar dermatologist oo ku nool waddanka Estonia aan markaa u bandhigay waxyaabaha dhibaatada ay waddankayga ka jira markaa wuxuu ii soo saaray cream aan testigiisa markii ugu horeeyay ku sameeyay family-gayga leena waxa aniga anfaca ayaan dad u bandhigi karayaa waa 3 qaybo badanna way soo socdaan habeenkii ugu muhiimsan oo hablaha ka biinaya aanan garantiina u siinayo inuu ka biinayo haaraha madmadowga wajiga kaga dhaca waxa ku xiga day cream wadankeenu waa cadceeda inkastoo wax badan aan ku soo darin oo loogu tala galay cream halka yaalo 50+ SPF inuu marka hore ay ka hormariyaan marka wuxuu siinayaa waa hablaha wajigoodu qallalan yahay Ayaala Cabdiraxmaan Ibraahin oo ah sarkaalka socday wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay ka wasaarad ahaan barbar taagan yihiin haweenka keena halabuurka ganacsi Jamhuuriyadda Somaliland wax ku badan waa shaqo la'aanta laakiin waxaan xagan ka bogaadinayaa gabadh haween oo la timid fikir fiican oo ah in ayadu halabuur la timaado oo maanta hadda aan ku sugannahay anoo matalaya wasaaradii ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska inaan maanta xariig ka sharo aniga si gaar ah waa igu farxad Ifraax oo kaliya maaha iyo Salma haweenkeena kan waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka soo qayb galay madashan quruxda badan inay iyagana halabuur la yimaadaan kulliba waxaan arkayaa haween badan oo Jamhuuriyadda Somaliland kamid ah in halabuur badan leeyihiin laakiin waxa nagu jira sida ay u soo bandhigeen iska soo saaraysa iyada kala duwan ee meheradani lagu iibinayo ayaa waxay kaga duwan yihiin agabyada kale ee haweenku isku qurxiyaan ee laga iibiyo meheradaha kale ee ku yaala magaalada Hargeysa inay dhamaantoodba yihiin kuwa dabiici ah sagal Baldeeq Axmed Cable TV Hargeysa